Assalaamu calaykum kusoo dhawaaw qaybtii koobaad mowduuc ku saabsan waxyaabaha sababa uuraysiga soo daaha ama in lamaanuhu uur heli waayaan. Qaybtan waxaan uga hadli doonaa 9 xaaladood oo uurka lagu weyn karo ama daahin kara uuraysiga. Mar waliba oo ay lamaanuhu raadinayaan helidda uur, waa muhiim inay garanayaan waxyaabaha keeni kara in aysan helin iyo wax waliba oo soo dadajin kara helidda uur. Uur helidu ma ahan kali ah in lamaanuhu kulmaan, laakiin waxaa jira arrimo badan oo kala duwan idinkuna caawin kara helidda uur ama weyntiisa. Caadada oo u saxan hooyada ayaa laga yaabaa inay ka hor istaagaan inay uur qaado xaaladaha ay ku nooshahay ama shaqada ay qabato. Bukaan deeq waxay idinku caawinaysaa ogaanshaha caqabadahaas iyo kuwa idinku caawin kara helidda uurka. Maxaa sababa in uuraysigu daaho? 1. Caqabad ka timaada ninka. Mid ka mid ah kuwa ugu sarreeya waxyaabaha sababa dhalmo la'aanta waa tirada shahwada ragga oo yar iyo shahwada oo aan caafimaad qabin ama lahayn saynta ay ku dabaalan lahayd, taas oo ay keento qalad ka yimaada qaab samaysanka shahwada. Waxaana lagu qiyaasaa 30 ilaa 40% in dhalmo la'aanta sabab u tahay. Waxaa lagu xaqiijin karaa baaris iyo in takhtarka lala kulmo. 2. Buuq saa'id ah. Buuqa ama walwalka waxa uu khatar guud ku yahay caafimaadka jirka iyo kan maskaxda. Sidaa oo kale waxa uu carqaladeeyaa helidda uurka. Buuqu waxa uu balansi la'aan ku ridaa qanjirada maamuli lahaa soo deynta shahwada iyo korinta ugxaanta, iyo weliba dhanka dumarka saxidda caadada. Marka haddii uusan qofku ku jirin deganaansho, suurtagal ma ahan in la helo uur. 3. Isu tagga badan ama isu tagga yar. Dadka qaar waxay aaminsan yihiin haddii kulanka sariirtu uu joogto ahaado in uur la heli karo, laakiin taasi sax ma ahan. Kulanka badan ee saa'idka ah waxa uu keeni karaa dhibaatooyin caafimaad sida daal, wareer, murqaha oo dabca iyo kaadi badan. Dhammaan waxa ay khatar ku yihiin helidda uurka. Calaamadahan: isu tagga aadka u yar maalmo badan waxa ay hoos u dhigi kartaa uuraysiga. Haddii kulanku yar yahayna, waxaa muhiim ah in lamaanuhu aqoon fiican u leeyihiin xilliga uur qaadistu diyaarka tahay. 4. Kulanka sariirta kadib oo suuliga la aado. Mar waliba oo kulanka kadib haweeneydu si degdeg ah ku aado suuliga oo soo xaajooto, waxaa aad u yar fursad ay uur ku qaadi karto, waayo shahwadu waxa ay weli ku jirtaa xubinta taranka dumarka. Marka haddii xubinta dumarka ka soo baxaan dareere jiha kale u socda, waxa ay dib u soo celin karaan shahwada, ama fadhiga ayaaba sahli kara in shahwadu soo daadato halkaana rijadii uur qaadista ku dhammaato. Marka kulanka ka hor waa muhiim in haweeneydu xaajada suuliga soo dhammaysato oo jiifka aysan ka kicin inta ay awoodo. 5. Hurdo yarida. Hurdo la'aanta waxa ay qalqal ku ridaysaa xubnaha jirka iyo qaab u samaysanka difaaca jirka. Waxaana halis ugu jira qofka hurdadu ku yar tahay in caabuq uu ku dhaco, dabeetana waxyeelo dhammaan xubnaha taranka si isku mid ah rag iyo dumar. Waxaana ay isku arki karaan qandho, kuleel fara badan oo jirka ka soo baxa, dhaawacna u geysta shahwada. Dumarkuna walwal iyo qalqal caadada ku yimaada ayay isku arki karaan. Waa muhiim hurdo kugu filan. Haddii caqabad kale ay jirtana, takhtarka waa muhiim la kulankiisa. 6. Miisaan yari ama cayilka aadka u faraha badan. Caatada saa'idka ah ama cayilka badan waxa ay carqaladeyn kartaa uurka. Haddii nafaqa darro jirto, ugxaanta ma isdiyaarin karto, kadibna uur qaadista suurtagal ma ahan. Si loo gaaro ujeedka, waa muhiim in miisaanka lagu ilaaliyo meel ku habboon. Xitaa haddii wareegga dhiigga uu saxan yahay, waxaa yar fursadda uurka. Cun raashin isu dheeli tiran. Samee jirdhis fudud haddii aad cayilan tahay. 7. Isticmaalka badan kareemka xubinta taranka la mariyo. Kareemka xubinta la mariyo waxa uu khatar ku yahay shahwada iyo qulqulkeeda. Waxa uuna joojin karaa inay isgaaraan ukunta iyo shahwada. Ujeedkuna waa in si toos ah looga helo xubinta qoyaanka xilliga uur qaadista la soo daayo, si shahwadu u nabad gasho una sii wadato safarkeeda si ay u gaarto ugxaanta. Marka haddii kareemka la mariyo xubinta xilliga, waxa uu waxyeeli karaa shahwada. 8. Dhaqamada nolosha qaarkood. Nolosha xun ama la qabsiga waxyaabaha qaar ayaa keeni kara in uurka la waayo, sida sigaarka,
cabidda daroogada, dawooyinka la iska isticmaalo, kofeega. Ragga kuwaan waxa ay ku keeni karaan shahwo yari iyo shahwada oo jirata, dumarkana ukumaha oo aan isu diyaarin uur qaadis. 9 deegaanka hawadiisu fiicneen, sunta lagu daadiyo bulshada dhexdeeda ama hawada wasaqaysan waxa ay keeni kartaa ragga iyo dumarkaba madhaleysnimo, kuwaas oo ay kamid yihiin kiimikada, sigaarka la isku afuufo, bacaha wasaqaysan, cuntada jiran ee la gasacadeeyo, waxyaabaha la adeegsado suntana leh sida saabuunta, shaambada iyo kareemada. gebi ahaanba waxa ay waxyeeli karaan taranka, yareyn karaana helidda uurka. La soco qaybta 2 oo aan uga hadli doono cudurrada la daweeyo ee keena uuraysiga soo daaha ama uurka la waayo. السلام عليكم كسو دواو قيبتي لباد موضوعان uga hadlayno waxyaabaha sababa uuraysiga soo daaha ama in lamaanuhu uur heli waayaan. qaybtan waxaan uga hadli doonaa xanuunada la daweeyo ee uurka daahiya. 1 qalqalka caadada, hooyada aan u helin dhiigga si joogto ah waa ku adag tahay uur qaadis. qalqalka caadada waxa ay muujinaysaa ogxaanta in qalqal ka jiro, marka ogxaanta oo aan diyaar ahayn uur qaadis macquul ma ahan. dhiiggaaga oo yaraada waxa ay ka dhigan tahay ogxaan qarxintaada oo yar kuguna hogaamisa uur helidaada oo yaraata. takhtarku waxa uu kugu caawin karaa helidda sababaha caado wareerka iyo daweynteeda. mar waliba hooyadu waa inay diiradda saartaa cunidda cuntada caafimaadka leh, samaysaa jirdhis fudud, haddii loo baahdana qaadataa dawooyinka dhalmada fududeeya. 2 unugyada minka oo meel kale ku samaysma endometriosis. kani waa caabuq waqti dheer hayay unugyada taranka ugu dambayna sababay in unugyada minka ka abuurmaan meel ka baxsan minka. waxa ay sababaysaa arrintan inay xirmaan tubooyinka ugxaanta, bacriminta iyo uraysigana gebi ahaanba aysan dhicin. xaaladan xilliga caadada xanuun daran ayaa jira, sidoo kale xanuun aad u daran xilliga isu taga, xanuun caloosha qabta, kaadida oo soo noqnoqota iyo kafka ama gumaarka oo xanuuna. dawada ugu wanaagsan waa qalin lagu sameeyo hooyada loona adeegsado mishiinka laysarka laparoscopic surgery, lagana saaro unugyada qaldan haddii tubooyinku xiran yihiinna la xaliyo. 3 ogxaan qarxinta ciladaha ku yimaada. 20 ilaa 40 dhalmo la'aanta dumarka waxaa sababa qalqal ku yimaada ogxaan qarxinta. qalqalkaas oo yareeya in ogxaan qaangaar ah oo bacrimi karta la soo saaro, halka dumarka qaarna aysanba ogxaanta qarxin oo aysan soo saarin ogxaan. qaar 4 bil ayay mar soo saaraan ogxaan. waxaa sababi kara xaaladahan isu dheelitirnaan la'aan hormoonada, miisaanka oo aad u yar ama aad xad dhaaf u ah, almiito aad u badan iyo buuqa ama walwalka. 4 burada ogxaanta. buradan waxaa sababa qalqal hormoonada ka jira, waxay carqaladaysaa ogxaan diyaarinta. buro aad u yar ayaa ka samaysanta ogxaanta ovaries, taas oo qalada ogxaan soo saarista iyo caadada. waxaa kale oo ay keentaa qalqal caadada, miisaanka oo kordha, findoob iyo timo wejiga ama hareedada ka soo baxa ama shaaribka. waxaa lagu xaliyaa raashinka oo la bedelo, cunto isu dheelitiran, nolosha oo wax laga bedelo, iyo qaadashada dawooyin lagu saxo hormoonada sida clomiphene citrate. 5 xanuunada tubooyinka. dhaawac ama xirmid ku timaada tubooyinka ogxaantu marto ugu dambayna joojisa safarkii ukumaha iyo shahwada ay ku kulmi lahaayeen si ay bacrimin u dhacdo uurna loo helo. waxaa sababa xaaladan badanaa xanuunada lagu kala qaado galmada sexual transmitted diseases, infectionka kaadi mareenka ku dhaca urinary tract infection UTI, iyo qaliimada lagu sameeyo taranka. xaaladan waxa kaliya ah ee lagu xalin karaa qalin loo sameeyo hooyada markii la ogaado. 6 cilado ku yimaada ugxaanta. tayada ugxaanta iyo tirada ugxaanta hoos ayay u dhacdaa inta u dhaxaysa 30 ilaa 40 jir. dumarku
marka ay dhalanayaan waxa ay haystaan qiyaastii 1 ilaa 2 milyan ukumo. ukumahaas hoos ayay u dhacaan ilaa laga gaaro qaangaarka. 300 ukun ayay haysataa gabadhu marka ay qaangaar noqoto. marka bil waliba waxa ay qarxisaa 1 ukun oo caado u dhamaata, sidaana ku sii yaraadaan bil walba. ugu dambeyn, haddii aysan guursan oo aysan uur qaadin gabadhu, qaangaarka kadib 25 sano ayay caadada ku weyn kartaa. micnuhu waa ugxaantii ayaa ka dhamaatay oo sanadkiiba 12 ugxaan ayay khasaarisay. xaaladan wax xal ah ma laha, marka dhalmada waa in la maamulaa oo lagu daraa qorshaha dhow. 7 ciladaha qoyaanka kafka dumarka. qoyaanka kafka waa dareere u sahlaya shahwada inay si fudud ku dhaafto xubinta una gaarto ugxaanta. mararka qaar waxaa dhacda in qoyaanka isbedelo oo uu ka hortago shahwada in ay marto kafka. waxaa sabab u ah xaaladan caabuq ku dhacay kafka oo ku daahay. waxaa lagu xalin karaa baaris iyo in la siiyo bukaanka dawadii ku habooneyd. 8 xirmidda tubooyinka shahwada ee ragga. tubooyinka shahwada qaada iyo kuwa kaydiya oo xirma. xirmidan waxaa keeni kara caabuq ku dhaca taranka ragga sida jabtada, dhaawac ku yimaada xubnaha, caabuq ku dhaca xididada quudiya xaniinyada. xaaladan waxa ay u baahan tahay xeel dheere caafimaad oo qalliin ku sameeya xubnaha xirmay dibna u saxa taranka. la soco qaybta xigta ee aan uga hadli doono sidee isugu diyaarin kartaan uur qaadis ama uur soo degdega.